بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، وسؤال قف كستoo muslim isweydiin karo oo dhulkan jooga, sidee bay u suurtagelaysaa inuu meeshanna joogo diintiisana u ilaashado? qof kasta oo dhul uu qariib ku yahay taga, stranger ah, waxa uu baa in mashaakil tiro badani oo nololeed ka hor imanaya. mashaakilku wuu sii adag yahay marka aad timaaddo ummad dhisan oo hadday tahay mabaadi'deed oo dhan haysata. innagu waxaynu u nimi halkan inaynu su'aalo runtii isweydiinaba habboon ku saabsan. waxaynu u nimi inaynu wax ku beddelanno, mise waxaynu u nimi inaynu wax kororsanno. inaynu wax ku beddelannaa dee waa fududahay. qofku hadduu rabo afkiisa, dhaqankiisa, diintiisa waxaba inuu dhiibo, beddelkana wixii uu helayo uu qaato, waa war la garto. mid kalena waxa weeyaan waxaagiina inaad haysato waxna ku darsatid. adigoo waxaagii haysta inaad wax kororsatid. bulshooyinka iyo qofka, fardiga iyo mujtamaca, haddii qofku waxa uu aaminsan yahay iyo culture-ku wato iyo dhaqanka iyo afka iyo ka bulshadu iswaafaqsan yahay, wuxuu dareemaa raynrayn iyo naxariis iyo deganaanshiyo. mashaakilku way ka yaraadaan. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام wuxuu ku tilmaamayaa: man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yawmi fakaannamaa xiizat lahu اddunya bixadaafiiriha. qofkii ka soo dhex toosa ama kuwaa bariista fii sirbi, ay fii mujtamaci, fii ahli, fii qawmi, dadkiisa qofkii kuwaa bariista isagoo nabad qaba, caafimaad qaba, wuxuu cuno haystaa, kaa adduunkao dhan baa ku soo ururay. yacni qofkani wuxuu helay alamni nafsi walamni alcaqadi walamni asixi walamni alghadaa'i. yacni wuxuu u baahnaa ee noloshu ay u baahnayd buu hayaa. waxaana iswaafaqsan bulshadu u yimi ama bulshadu ka tirsan yahay, waxay aaminsan tahay iyo wuxuu aaminsan yahay baa iswaafaqsan. haddii qofku uu yimaado meel aanu dhaqanka, afka, culture-ka, diinta la wadaagin, waxaa adkaata siduu isu adjust gareeyo. waxaa adkaata wixiisiina siduu u haysto waxna u kororsado. waxaa fududaata inuu milmo, dawabaan uu ku dhaco, ou dadka ka mid noqda fudud. marka ay dhacdo markaa in bulshadu waxay rumaysan tahay iyo waxa dhaqan u ah iyo nidaamkeedu iyo adigu wixii aad rumaysnayd ama diin u haysatay ama dhaqanku u ahaa iska hor yimaadaan, waa markaa markuu qofku dareemo algurba. waa markuu strangenimada dareemo, inuu stranger yahay. waa markuu dareemo challenge inuu ka soo hor jeedo. waayo bulsho kastoo meel ku dhaqan waxa la yaqaanaa waxay ilaalisaa identity-gay bulshadu leedahay, waxaana ku ilaalisaa can طariiqi اlcilmi waاliclaami wاlqaanuun. wasaaradda waxbarashadu waxay ilaalisaa bulshadan inay isku darto oo ay siiso identity-gii bulshadu lahaa qofkan ku soo biiray inay siiso. iclaamkuna waa sidoo kale. miidhiyu
waxa uu sheegaya iyo wuxuu ka warramayo iyo waa dhaqan iyo culture iyo hidde iyo af ay dadkani leeyihiin iyo taariikhdoodii intaa waxaa dheer haddii ay intaasi ku anfici weydo systemkaad ku qasbantay nidaamka guud alqaanuun system baa ku qasbaya inaad systemka raacdo su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay meeshaa kaa gadisan sidee baad diin ugu dhexaysan kartaa marka aad meel kula nooca joogtid majhuudka ama effortka iyo koskay kugu qaadanaysa inaad waxaaga haysataa waa wax fudud waayo bulshadaad la nooshoo dhan baa dhan u wada socotaa saa daraaddeed afkaa lumi maayo dhaqankaa lumi maayo diinkaa lumi maayo waxoogaa un adigu is-ilaaliso midhmidhka qaldan wixiisa inaad ka tagto ayuunbaad u baahan tahay laakiin sistemka guud wixii aad rumaysnayd buu wadaa marka inaad diintaada ilaashato ilmahaaga ilaashatid dhaqankaaga ilaashatid awoodda aad ku bixinaysa iyo hantida aad ku bixinaysaa waa wax yar markaadse timaadid meel aad intiiba kaga gedisan tahay waxay u baahan tahay wakhti ka badan iyo hanti ka badan iyo effort ka badan iyo caqli ka badan aad ku adeegsato si aad waxaagii hore u ilaashato u suurtoobi karto inaad waxna kororsato sideedabana ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaah dadka dhulka ku nool intooda badan haddaad aqbasho yudiluuka can sabiili illah baa ilaahay tilmaamaya jidkay kaa luminayaan haddaba qofka halkan yimi waxaa la yidhaahdaa laba option ama laba doorasho qura laba khiyaaro keliyuu haystaa khiyaar waa inuu u diyaar garoobo sidii uu diintiisana u xejisan lahaa iyo wixiisa waxna u kororhsan lahaa hadduu arkayo taasi inaanay suurtagal ahayn khiyaar labaad ma jiro ee waa inuu meeluu wixiisa ku haysan kara tagaa halkeeba inaad tirahda halkaa dhib baa ka jirtee dunida gebigeeduba waa challenge intaad nooshahay waa alibtilaa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا دوني ده واحد وشوكتين لقوا يتحاموا لكن هذا كوكو حرمت مركا امتحان كان نوع تشالنج غرينيس تشالنج كات ربطين قادته كان نوات قادن كرتا تشالنج كات شوكا هذا تكبيحي كرتا هدي أنا كنا وودي كرين وأنا قادة challenge هذا والبكسو عرفتي والنبض إيو لقالية عنكو صابس السنة كاسي دي أدو مانج كرين لهايد وين أدواج هذا لكن مال كان حيسا ما جرت الله بضا هي كان حيا ورد ما شو محلو بهي مركاين إنه هيسنو تاني إلهي قرآن كوحي نوكا قول رميا قصص تربضا oo ku saabsan bulshooyin dunidan soo maray iyo siday u noolaayeen bulshooyinka ilaahay ka warramaya qur-aanka qisaskooda ku soo naqliyey qaar gaala ah iyo qaar muslimaba way lahaayeen ummadaha ugu tirada badan leh qur-aanku uu ka warramo waxaa ka mid a dadka yahuudda la yidhaahdo yahuudi waa bulsho taariikh dheer leh waa dad xun iyo dad wanaagsan ba lahaa dad wanaagsan oo badan bay lahaayeen saa qur-aanku ka warramayo bale ambiye badan bay lahaayeen nebiyo nebi yacquub nebi yuusuf nebi sulaymaan nebi huud nebi muuse ambiyada qur-aanka warramaya oo dhammi waa faamiliga waa bulshadaasi ka tirsanaya dad wanaagsan way lahaayeen a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun وجعلنا منهم أئمة إلهي وحولي إياها وحنو كيالي أئمة آيات كياغا أئمة الصبري وآيات كياغا يقصدي دادك قدوة النقضي تصالح دانك كلنا كوحن بيلهاي إلهي مركا قرآن كوحن وقوى الرمية برشادة غير برو إسرائيل إلهي قيب مركا ميدا تاريخ
إلهي وحده وقطعناهم في الأرض أمما ونقوقينو دول كانوا كسيدين با إلهي قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون دد ونكسن ويلهايين با إلهي دد حن ويلهايين وانا لقوقوي واتحامي با إلهي ليو حسنات يا سيئات با وناقي حموي صمبا والغو اتحامي لعلهم يرجعون ها حال كودي نقضي مركا قصص قال إنه ورميا إننا قار كمدي فعلا دي سميان إننا سمينين إلهي وحلي مركا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب كوا وحا قدال مري كوح كتاب كان دحشي با إلهي ورثوا الكتاب كتاب كوا يدحله يأخذون عرض هذا الأدنى waxay qaadanayaan baa Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala noloshan gaaban wixii ka soo gaadho waa iska qaadanaya xalaal iyo xaraan iyo aan weegin oo way yaquluuna waxay oranayaan sayughfaru lana wa anna loo dambi dhaafi doona wa yaatihim aradun mithlu mar labaad hadii kiyo kale ku soo baxana yaakhudhuhu baa Ilaahay yiri waa qaadanaya Ilaahay qolada wuxuu ku tilmaamay dhowr sifo kow kitaabka way dhaxleen bini aadamku wuxuu dhididkiisa iyo xooggiisa ku baxsado iyo wuxuu dhaxla ku helaa agtiisa way ku kala fudud yihiin bini aadamku haddii uu maalan ilmaha yar haddii xoolo looga dhinto inta badan waxa dhacda inay maxay ku cayaaraan waayo umay dhididin iyagu laakiin qofku xoolaha uu shaqaystay ku dhidid ee xoog iyo naftiisa ku bixiyo wuu la xajaclaabayo way adagtahay inay ka baxdo noloshoo dhan baa sidaasiya diinta dadka u dhintay ee naf iyo maalba soo siistay ee waxay u hijrooday saxaabadii nabiga dadkani waa noloshooda dhan bay siisteen saawgeed way ku adkaayeen laakiin dadka dhaxalka u helay sidii noo kale meelun baynu iskaga dhalanay dad muslimiini joogaan islaamkun baynu aabbayaasha iyo awowyadeen allahu naxariistee ka dhaxallay wax kasta oo inagu joogay ما جرين أدنى مجهود ما ينقلين قلنا وحلو قلت الماما يقولون إني كتب كدحلين حل ما يكون هله ورثوا الكتاب لكن نقل كودي محايل إلهي قلت الماما إلهي وحولي واحد دوران تسكس بياب وحيلي إلهي وغفور رحيم سيغفر لنا ونودى بالدافع دونا بنادم هو عدعضه إنه قفه إلهينا وغفور رحيم وهدوك صار نقضات توبتك نوجدك الصحة قاضي إلهي دمك يسوي دافع لكن قلنا عادة دوام حي واسكن دمبانيان marka la war waa sideena insha Allah Ilaahay baa noo dambi dhaafa bay leeyeen Ilaahay baa noo dambi dhaafi ma barita haday tiitimaadana waa la wadaya dad minis dambiga waa la wadaya rajada iyo amalka Ilaahay baa dambiga dhaafi doonana waa la hayaaba Ilaahay leeyeen waladan Ilaahay wuxuu ku yiri alam yu'khadh alayhim mithaqul kitab alla yaqulu ala Allah illa al-haq wa darasu ma fihi wad-daru al-akhiratu khayrun lil ladina yattaquna fala ta'qilun warkuwan miyaan Ilaahay ballan ka qaadin baa alla leeyahay subhanahu wa ta'ala inaan Ilaahay been ka sheegin oo kitaabkan inay daraaseeyaan iyo waxa ku jira wardaarta aakhira u faa'iido badan baa Ilaahay leeyahay u khayr badan dadkii Ilaahay ka cabsanay war miyaan aqli lahayn baa Ilaahay afala ta'qiluun miyaan garashadu shaqaynin baa Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala idan group kuwaas lagu tilmaamay inay noqdeen qaar kalena waxa la tilmaamaya والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين هو كتاب قبصة با إلهي لي مسك وبتضعيف يبا الاستعمال وهذا عربيد يعني هو واحد قبقبان يسواد حجين يسو مسك هو قبطي لكن مسك والذين يمسكون بالكتاب إلهي هو كتاب قبصانية حجينية وأقاموا الصلاة صلاة أوغية إنا لا نضيع أجر المصلحين بإلهي مالو من النبي إلهي لي كوا السماح السبين أجر كودلو من مايو إذن قصة إلهي وحين أبو الشاقر هربر إسرائيل لكوكويي سيدا إنو كلا فردني لو كلا فرديي إن إداد صالح إداد حنبا لهايين وهلا شاقر امتحان هذا وصومري بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
laakiin waxaa la tilmaamay gruubkaasi gruub inuu ka dambeeyey iyagu intay wax walba iska dhumbadaan diintoodii aan xejisanin ee amalka ah in loo dembi dhaafi doono un iska haysta waxay doonaanna sameeyaan iyo koox kaloo ah kuwo kitaabkoodii intay qabsadeen xejistay oo salaadoodii oogay oo ilaahay leeyahay kuwa wanaagsanna ajarkooda lumin mayno idan waa labada wado qofka qariibka mid unba ku biiraya bulsho kaa badan markaad adigoo yar la joogto labadaa wado mid unbaad qaadaysaa su-aashu waxa weeyaan haddaba waa maxay wasaa'ilka inugu xejin kara diinteenna sidaynu u xejin karnaa waxaynu u baahannahay inaynu in yar dib ugu noqonno tajribadii saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi moxamed wadcigaynu ku loon lahay mid ka adag bay ku noolaayeen mid ka adag nebi maxamed isagoo keligiiya la soo diray calayhi salaatu wasalaam qof iyo laba iyo saddex baa rumeeyey dhul gaaleedna way deganaayeen meeshay deganaayeen markii waa dhul gaaleed madiinina waa dhul gaaleed marka gaalaa degan culture kalaa yaalla luqadooda isku mid bay ahayd laakiin caqiide iyo dhaqan ka gedisan kii jaahiliga bay haysteen sidee bay u dhacday inay saxaabada iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam ka hor tagaan oo ay diintoodii u xejistaan waxaan rabaa inaan in yar tilmaamno afartii suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegay qur-aanka culammadu waxay isku waafaqsayeen afar suuradood baa ugu soo hordegay ayaa inta badan tilmaama weliba afarta suuradooda wada dhan maaha mid walba qaybteeda hore waa suurat alcalaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة داس قيبتها وحكالو ينسو دكتي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آيات كاسي هرية وحكالو سو دكتي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلى آيات كسيحية وحكالو سودقي نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا آياتك هاي علماء يراهدان waxyigii koowaad ee nebi maxamed ku soo degay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa godka markuu ku jiray laakiin maadaama uu nolol adag waajihi doono waxay idhahdaan qaabka wax la ysugu bara tacliimka si qabow baa qofka wax loo baraa laakiin nebi maxamed markii lagu bilaabayey qaab adag baa loogu bilaabay malakul jibriil baa intuu qabtoo gelgelay ayuu iqra ku yidhi waxay culammadu yidhahdaan waxaa la taabsiinayey قمة الانتباه والصحوة وحصو صعدا wax fudud inaanu hayna inuu xoog u soo jeesto dabeetana quraanka ma ku soo degay quraankani muxuu ka warramaya waxay dhaadaan aayadkani waxay sheegayaan haddii lagu dhaqmo waa waxa sababi kara inay cidi mabaadi'deeda haysato ku dhaganaato diinta inaad xejisato aayadkani dhowr shay bay ka warramayaan midi waxa weeyaan kow waxay ka warramayaan qadiyat alcilm iyadoo laga yaabo carab inay jahli ku sugnayd aqoon inaan waxba ka jirin oo ay noloshoodu cayn ka ahayd cilmiguna inaanu qiimo badan agtooda ku lahayn laakiin wixii qur-aanka ugu soo hordegay masalada qalamka masalada kitaabada iyo akhriska iyo cilmiga iyo ku saabsan waa laba suuradood markaa nuun walqalami wamaa yasturuun waxaa lagaga warramayaa qalinka iyo waxa la qoro اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قضية العلم والقلم والسطور بالغ والرب